shirkan jaraa'id oo ay qabteen garsoorayaasha maxkamadda sare ayay ku soo dhaweeyeen go'aankii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu xilka kaga qaaday gudoomiyihii maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan isla mar ahaantaana uu u magacaabay xilka Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed garyaqaanada ayaa aad u soo dhaweeyay garyaqaan Baashi oo uu dhawaan madaxweynaha dalka u magacaabay xilka gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Axmed Maxamed Sheekh Ibraahim Baardheere oo kamid ah garyaqaanada maxkamadda sare ayaa la hadlay saxaafadda isla mar ahaantaana muujiyay dareenkiisa isagoo ku hadlaya afka garyaqaanada maxkamadda sare anigoo ku hadlaya ragga asxaabtayda ah oo ila fadhiya caawa afkoodana ku hadlayo dhammaan garsoorayaasha maxkamadda sare oo ugu horeeyay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare Dr. Maxamed Dr. Loo waxaan halkan ay ii wakiisheen ama aan ku hadlayo anoo afkooda ku hadlayo waxaan awalan isla qaadanay maanta goor aan shirnay kowdii maanta duhurnimo waxaan isla qaadanay go'aanna aan ku gaarnay in awalan aan taageerno ma garanaysaa dekreetadii ama xilka qaadistii gudoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan uu madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka ka qaaday ayaan soo dhaweynay oo guddiga maxkamadda sare dhammaan xubnaha maxkamadda sare ay soo dhaweeyeen maanta intaa kadib waxaan isla garanay inaan anagu soo dhaweyno si wanaagsanna ula shaqeyno ayaan ballan qaadnay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay maxkamadda sare ee dalka shalay galab sidaas ayaan anagu go'aan ku gaarnay islana qaadanay waxaan kaloo isla qaadanay aan soo dhaweynay inay sharci tahay xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidle Suleymaan ayaan soo dhaweynay waxaana taageernay go'aankii uu ka qaatay madaxweynaha qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo uu xilka uu u magacaabay gudoomiyaha cusub ee dalka marka sidaa darteed annagoo wada dhan oo dhammaantayada ah arrinkaas si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyey waan isla qaadanay waxaana codsanaynaa dhammaan xubnaha kale oo garsoorayaasha gobolka maxkamadda racfaanka iyo maxkamadaha dalka inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan sida annagu aan u soo dhaweynay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay garyaqaan Cabdinaasir Seeraar Axmed oo kamid ah garyaqaanada maxkamadda sare waxa uu yiri waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha Baashi oo cusub waxaan eedsanahay magacaabista gudoomiyaha cusub iyo xilka qaadista gudoomiyaha hore Ibraahim Iidle Suleymaan gudoomiyaha Baashi oo soo dhaweynaynaa magacaabista wax dib kama yimaanayo mar haddii guddi adeeg jirin markasta waxa soo magacaabay madaxweynaha magacaabay kii horena guddi adeeg soo ma dooranin madaxweyne hore soo magacaabay sidoo kale kan waxa magacaabay markii guddigii hore adeeg laga fariisiyay madaxweynaha soo magacaabay wax cilad oo leedahay ma jirta aaminsan anagoon inaan la shaqeynin diyaarna gudoomiyaha cusub si kastaba ha ahaatee garyaqaanada ayaa aad u soo dhaweeyay go'aanka uu madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed dhawaan qaatay oo ku aadanaa inuu xilka ka qaado gudoomiyihii maxkamadda sare isla mar ahaantaana uu u magacaabo gudoomiye cusub waa Maxamed Cismaan Daahiye oo ka soo hadlaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Somali Cable TV